السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبني نسلام هم دمانتين ما أنتوا حرمينا كهذا الله أرمى جيران أو arrimaha ay u badan yihiin baryahan bulshada ama dadka intooda badan ay jecel yihiin oo qof kasto inuu soo istaago oo uu noqdo musharax. Anagoo ognahay inkastoo aan ognahay inay yihiin kuwa aan bulshada wax ka bedelin ama dadka waxba aan u qabanin, hadday tahay gafanaha, haddii yahay MPga, kuwa maaragtay MCAga, dadki dhammaantood waa wada musharaxiin. Bulshadana nugulkoodana aad bay u badan yihiin oo dad danyar intooda badan oo markii lasoo doorto dadka danyarta aan waxba loo qabanin ama telefoonka intooda badan baa laga qabanin. Dadkaas sidee loogu waantoobi karaa ama ay u noqon karaan kuwa musharaxiinta kuwa bulshada wax u qabtaa oo bulshada wax kusoo kordhiya? Goobaha qaar ama meelaha qaar markaad tagto malaha xarun caafimaad, waxaad arkaysaa maama ama gabar foolanayso ama umulayso oo loola cararayo masaafo aad u dheer ilaa 100 kilomitir meesha ay joogto malaha xarun caafimaad ama isbitaal. Goobaha qaar markaad tagto ama aad ku socdaasho waxaad arkaysaa iskuulla aan lahayn ama iskuulla laga dhisay laakiin aan lahayn wax soo saar quality leh, waxbarasho fiican aan lahayn waayo macallimiin ma joogaan ku filan. Goobaha qaar sida oo kale biyo la'aan waa saa'id ha u badnaadaan meel kastoo aan dhahno gunodistan maxaa keena marka qof walba inuu siyaasi uu dhaho aniga siyaasi noqon oo qof walba uu soo hanqaltaago ama uu hamiyo inuu siyaasi noqdo bulshadina wax u qaban? Bulshada marka ma yihiin kuwa ka waantoobay wixii lasoo maray ama laga soo gudbay oo u diyaar in ay qofka ay soo saarayaan ama ay dooranayaan ama ay xilka ay rabaan inay u dhiibaan inuu yahay qof wax u qaban karo bulshada, waxna ka bedeli karo noloshooda? Sideena midaa lagu heli karaa? Dhammaantaan haddii aan noqono kuwa u taagan badbaadinta ummadda ama horumarka ummadda waa la gaari karaa. Waa inaan noqonaa qofka siyaasiga ee la dooranayo inaanan ku dooranin qabiil ama qoys, waayo wixii qofkii haddii qabiil ku doorato qabiil buu iska noqonaya, hadhow wax uu kugu soo siyaadinayo inna hawa yaraatay ma jirto. Qof walba markuu taagan yahay wuxuu ku leeyahay anigaa ku caddaynaya, anigaa ku madoobeynaya, intaan biyo kasoo suraya mashiin caano cirkaan biyo ka keenaya, dhulka waxaan ka qodayaa barkada lagu qabaysto oo shaaware oo dhulka hoostiisa inaga qodaya. Haddana wax ka suurtagala ma jirto, dhammaantood waxay noqdaan kuwii hore meesha ay mareen bay maraan. Marka dadka waxaan u sheegayaa, dadka Soomaaliyeed, dadka ku dhaqan Northeastern, qofka aan dooranayno ama aad dooranaysiin waa inuu noqdaa qof nolosha ayatiinka wax ka bedeli karo. Hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto shaqo abuurta dhalinyarta, hadday noqoto waxbarashada, iyo haddii ay noqoto meelaha qaar waqtiga abaaraha la joogo biyo la'aan darana ka jiraan, waa inuu noqdo qofka inuu bulshada wax kusoo kordhiyo. Haddii uusan ahayn qof bulshada wax kusoo kordhinayo ama horumar noo keenayo, waa in aan iska daano codeyntiisa iyo waqti ku bixiskiisa iyo beenta uu dadka u sheegayo oo runta loo sheego la yiraahdo uma qalantid in aad xil noo qabato, uma qalantid in aan kuura ku siino, uma qalantid in aan waqtigaana kugu bixin. Hadal waxaa la yidhi nimaan run ka sheegin been ayaa u kaydsan. Qofka waa in runta loo sheego. Waxaan ognahay siyaasiyiin badan oo waqti badan kusoo jireen siyaasinimada ama xilal badan soo qabteen, wax ay kusoo kordhiyeen inna haba yaraatee oo maanta la taaban kara aysan jirin, balse weli u hanqaltaagayaan inay xilal kale sii qabtaan. Dadkan ay yihiin kuwa u sacabatumayo soo dhaweyntiisa ama u istaagistiisa. Qofkaas oo kale miyay mudneen in runta loo sheego la yiraahdo shalay ayaan kusoo dooranay waxba nooma qabanin
oo manihi meesha sidii bay ugu jiraa, biyo la-aanta sidii bay ugu jirtaa, waxbarasho la-aanta sidii bay ugu jirtaa, caafimaad la-aanta sidii bay ugu jirtaa. Walaalow uma qalantid xilkan inaad qabato, adigoo raalli ah. Qof kale oo aan ku bedelan ayaan raadsanaynaa, iska laabo. Waa loo soo dhaweeyaa qof kasta oo siyaasi dhaho siyaasi waan rabaa, loogu sacabtumaa. Ma waxay la is leedahay dadka waxay daneynayaan shilimaadka yar ee markaa la bixinayo ee qofka jeebkiisa ku jiraan? Ma dadkii waan fikiraynin oo maskaxdooda wixii ay soo mareen ay u xisaabsaneen, dhacdooyinkii kusoo dhaceen ama dhibaatooyinka ay soo mareen, miyayse ahayn kuwa u qoran ama xanuuno kusoo reebtay? miyaad is leedahay waxay niyada u dhisahayaan qofkan siyaasiga ee kuurama siini rabaana niyad dhis bay u hayaan? Sidee lagu kala saari karaa? Sida lagu kala saari karo waa in la helo dad bulshada u taagan, danta bulshada u taagan, u dhaqdhaqaaqa bulshada, runtan u sheega siyaasiyiinta. Walow aan ognahay dhibaatooyin fara badan oo bulshada haysato, khaasatan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Northeastern. Aan ognahay oon soo koobi karin dhacdooyin fara badan ay jiraan. Dadka siyaasiyiinta keliya ma aha, hataa waxaa ku jiraan dadka chiefafka ah, bulshada kama taliyaan noloshooda iyo ayatiinkooda iyo horumarkooda. Waxaad arkaysaa qof waddanka u dhashay, muwaadin ah, kusoo barbaaray, ku dhashay, ku waxbartay, markii uu raasanayo sharciga waddanka ee ID-ga in lacago badan laga qaato, qofkii la dawo la meermeeriyo, waxba aan loo qabanin inta aad la yiraahdo. Inkastoon ognahay in sharcigaas uu free yahay oo qof kastoo muwaadin oo Kenyaan loogu talagalay inuu qaato, laakiin kuwa Soomaalida ah aysan siday rabaan aysan u helin, isagoo muwaadin ah u dhashay oo la ogyahay inuusan sharciga u helinin. Dhibaatooyin fara badan ayaa jiraan. Dhibaatooyinkaas waxaan u baahannahay in aan ka waantoogno, ayna cashir noo noqdaan wixii nagu soo dhacay. Waayo haddiise aynusan noo qorneen ama aan ahayn kuwo maaragtay dhibaatadii shalay ku soo dhacday meel ku qorteen ama og, ummadda waxba iskuma tari karto, waxbana iskuma qaban karaan. Marka aniga waxaan leeyahay qof kastoo siyaasi oo imaado yaana dhihin horay u soco, aan ka fiirsano, aan u fiirino nolosha wuxuu ku soo kordhin rabo. Qofka markuu ku dhaho xil baan rabaa, waxaa koow ah inaad weydiiso, okay, mid baa xil hayaa, maxaad kaga duwnaan rabtaa? Misana maxaad midka asaga aan waxba dadka u qabanin adiga aad kaga duwan tahay? Kulley qof walba marka ayada ah wuu isdifaaci oo wuxuu leeyahay aniga waxaan qaban hayaa waxaan caanaan inta ka keenaya mashiin caana inuu suraya, midka horena saas uu ku dhahay oo og tahay. Marka waxa aad ku dooranayso midkii hore iyo midkan dambe waa inaad farqigooda ay ku kala qoran yihiin ama ay ku kala cad yihiin. Inkastoo ognahay hadda waqtiga siyaasadda inay soo dhowdahay, waxaan dhihi lahaa ama aan leeyahay aan ka fiirsano qofka aan codka anaga aan siinahno. Haddii uu noqdaan kuwa aan waxba noo soo kordhinaynin, qorraxda waxba yaan isku dilin, guriga aniga aan iska seexano, aan iska nasono. Laakiin midkaad u aragto inuu bulshada wax u keenayo ama uu ku soo kordhinayo, waxaan dhihi lahaa la soo dhaweeyo. Laakiin dhibaatooyinka ayaga sidan oga bixi lahayn waa inaan falkooda galno. Aad baan idin salaamahay dhammaantiin. Kusoo dhawaada channelka cusub ee Gargaar Media. Subscribe iyo like iyo comment iyo share ku dib noogu caawiya insha Allah. Waxyaalo fara badan oo ka jiro bulshadana waa inii soo tabin doonaa. Assalaamu calaykum.